بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني وصومالي وين تي في وعد كداوان كرتان مقالة يتبوري إيا النواحي جيدا داودياش عن جعلنا هيو وحاندين هينا عوضا برنامج هذا فربضا برنامج هذا يدا سوحا وهرين دونا يدا قرآن كريم كاوت كسونا ما نيسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نوان فعود داودي على يداس القرآن الكريم كأ markana waxaan idin haynaa barnaamij aan ugu talagalnay inaan idinkaga soo gudbino TV-ga Soomaali Weyn oo aan ugu talagalnay barnaamijkaasi maalinta 8 Maarso ee haweenka adduunka oo siyaabo kala duwan looga xusay magaalada Göteborg caasimadda labaad waddanka Sweden. daawadayaal barnaamijkani ayaa markii ugu horeysay qaybtiisii koobaad waxaa lagu qabtay magaalada Göteborg xaafadda Hisingen waxaana ka soo qayb galay dad badan oo Soomaali ah iyo waliba isugu jira dad kale oo Carab ah halkaasi oo ay ku soo bandhigeen maamooyin Soomaaliyeed cunto Soomaali iyo waliba ciyaaraha hidaha dhaqan Soomaali. maanta aan ugu imaanay inaan ku xusno maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso gobol rasmi ah oo bilaaban doonta xafladda quruxda badan waxaa soo qaban qaabiyay ururka gabdhaha hiil ee ka dhisan magaalada روايات كانت دونتا دورك dumarka iyo qiimaha ay ku leeyihiin ayaan idin soo bandhigi doonaa sidoo kale waxaa jiri doona weyn aad tagayso doonta qaar ka mid ah gabdhaha ururka hiil waxaa ka mid Saraysa Faadumo Daawud oo ay noqdo gaaban loo marin doonto sidoo kale waxaa ka mid ah gabdhaha ururka hiil xafladan quruxda badan 8 Maarso soo qaban qaadiyay caawo shukri sidoo kale ardiyo Soomaali ayaa ka mid ah barnaamijka weyn ee qaranka سعدي واتكبر ضمن العودة برنامج كلا سنفي عيون وقفوا ما يكون لقينا صوت هذا وسوف تقولك إنه تكون سنفي وقت يقولون لبضنا نقصوا متسك waxaan aad iyo aad mar labaad aan idin salaamayaa salaanta muslimka aan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan caawa oo ah maalintii 8 Maarso ee xuskii haweenka adduunka nasiib wanaag markaan dalkeena joognay 8 Maarso raggeena waxay dhigeen maxay ka qaybgalaysaa midinka Yurub jooga midinka Mareykan jooga maanta waxaan taaganahay calooshii haweenweynaha adduunka ay shalay ka cadaadayeen 8 Maarso ay ku soo baxday wax yar waxaan idin sheegayaa 8 Maarso micnaheeda waan dabaaldegnaa laakiin waxay ku bilaabatay iyo waxay ahayd markaan taariikh kooban idinkaga sheegay 8 Maarso waxay soo martay isku raaceen waqtiyo kala gedisan ama ururo kala gedisan oo Maarso ku dhawaaqideeda waxa uu bilaawday halgankii ah maalinta ay taariikhda 1857 ayaa maxaa dhacay banaanbax ay sameeyeen haweenka Mareykanka ee u shaqeynaya warshada dharka haweenka Mareykanka waxay ka cabteen in haweenku ay ahayn kuwa la xaqiraayay shaqadoodan ay badneed oo si xeel loogu shaqeysanayo mishaar yar la siinayo waxay codsadeen shaqo xumada haysi in wax laga qabto waxay kaloo codsadeen in mishaarka yar loo kordhiyo banaanbixi ay soo banaanbixeen waxaa qabsaday ciidamadii qabsaday waa la kala raacdeeyay waxaa lagu shubay sunan dhax loogu furay si haweenka warkooda aan loo qaabilin way nasteen 2 sano ayay aamusnaayeen 2 sano kadib ayaa waxaa soo istaagay 1500 oo haween oo runtii istaageen dib u noqonaynin ilaa danta ay raadinayaan la sameeyo waxaa maalintaas ay bilaabeen 1908 maalinta ay ahayd ayay ka bilaawatay New York
magaalada Mareykanka banaanbax haweenka Mareykanka ay bilaabeen waxa kale banaanbax sameeyeen haweenka Yurub oo ayagana u istaagay inay u dagaalamaan xuquuqda u dagaalamaan oo markaas ay dagaalo socdeen ragga dagaalo loo diraayay annaga hadda ilaa hadda lama haayo gabadhaas raggeena dagaalka ka soo noqdaano ka soo laga soo celiyo hadii kale uu guri micunayno midkeena lagu haayo hadii kale uu guri micunay ama ninka dagaalka laga soo cesho ilaa hadda gabar Soomaali ma sabin qaarna biyaha u qaadaan qaarna caanaha u qaadaan si kasta ugu qaadaan duruuf kasta ku timaado nasiib wanaag gabdhahaas waxay xoog ka saareen marka ugu horeysa in shaqo la siiyo shaqo xumada ay ka baxaan mar labaad inay helaan mishaar ku filan mar saddexaad waxay codsadeen in la siiyo codkooda oo noqdo cod macquul ah ee hergala lana aqoonsado runtii waxay soo socotay waxa lagu shiray magaalada Copenhagen nabad garanaya magaalada Copenhagen waxa loogu shiray in la yiraahdo haweenka balqeyl dhaaminayo maxaan u qabanaa shirkiga magaalada Copenhagen lagu shiray wuxuu soo saaray maalintii haweenka in la aqoonsado oo maalin loo aqoonsado 19 Febraayo ayaa loo aqoonsaday haddana uma aysan cuntamin 1909 ka taariikh weeyeen nasiib wanaag shir weyn oo qaramada midooba ayaa soo baxay qaramada midooba shir ay qabteen haweenkii waxa istaaga haween madax u ah socialka ama caalamka dimuqraadiga haweenka ee Jarmalka ay u istaagtay waxay tiri haween hadaan nahay xuquuqda inaan helayaan doonaynaa waxay gabdhaha ka cabanaa in la siiyaan doonaynaa oo la siiyo runtii aad baa maanta loo wada riyaaqay ragii way la soo banaan baxeen haweenkii ay gacan istaageen noloshii dhawaatada haysay looga bixiyo ayay saareen dagaaladii ku bilowday koowaad 1913 dagaaladii koowaad adduunka ayaa bilowday isla markaasna oo colaadihii ay ahaayeen colaado aad u lagu dhamaaday laguna hoos ayay ahaayeen waxay soo socotaba waxay haweenkii mar labaad codsadeen inay midoobaan hal magacna loo sameeyo nasiib wanaag waxa uu istaagay madaxweynihii Ruushka oo la dhihi jiray Lenin kollega bina ma dhala waqtigaas Lenin laga sheekeynayo ninkii wuxuu u istaagay ama la ansixiyo hal mar oo qaramada midooba ay ogolaatay in lagu dhawaaqo 8 Maarso ay noqoto maalinta haweenka iyo maalinta nabadda runtii taariikhdaas kooban waa waxa tiin gabdho yar yar ama shaqo dawlad aan soo qabanin annaga markaan dib u soo noqono oo taariikhda ka soo noqdo haweenka Soomaaliyeed ka shaqeynaya Soomaaliya nasiib wanaag annagoo diintana xakameynayso haddana waxaan haysanaa waqtiyo hooyada uurka la markay 9 bilood gaarto waxa la siinayaa 4 bilood ay nasato waxay lahayd markay shaqada subax soo gasho 2 saac nuujin ah ay gurigeeda ku noqoto cunugeeda ay nuujiso waxa kale in rag weyn xaqiri jireen noloshii noo ogoleen aqoontii aan ku yareen jaamacadaha aan ku yareen nasiib wanaag maanta waxa Ilaahay mahadiisa dhan walba anaga soo baxna wadankeeni maanta gabadh walba luuqaday ku hadlaysaa luuqadu waa muhiim diintan in la xafido oo aan ku dhalan diin aan ku dhaqan in la xafido markaan dib u soo noqdo caawa waa habeenkii 8 Maarso xuska haweenka adduunka hadana gabdhihii Etiboori joogay ururka hiil waxaan u istaagnay inaan xusno waxaan tacsi u diraynaa idinkoo aan afkiina aan ku hadlaayo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool oo ninkeeda dhintay walaalkeeda dhintay cunugeeda dhintay wuxuu ku dhintay lama yaqaano colaad ma dhamaata 22 sano waxa kaloo jira caawa oo naga maqan xibna ah gabdha inay guriga ku jiraan hooyooyin Soomaaliyeed qurbaana joogaan carruurtoodii laga qaatay hooyo carruurta laga qaato ma farxayso caawa inta la labisan ugu ma jirto qalbigeeda guriga la fadhidaa bal inaan hal mar aan u istaagno ilaahayna aan u barino daqiiqada aan u aamusno faataxadana aan u akhrino ayaan idinka codsanayaa bismillaahir rahmaanir rahiim faataxo bismillaahir rahmaanir rahiim إلهي أنا أقبله أيقنا الله هو أقبله واهيب كيني وولاله قفن جيري قال مرة لكن جيري ما أنت تعال وطن كيني مدحم بين قطي وحن كلو عاو عن باقي يقدر سنينا مداو أنا هوين كسوماليين كل نور يتبوري نصيب نقوها إلى يوروب ما تينادين دقالني كسر عرنان واحد جرافق سومالي يجبر دلنيرا كل حبسياش أفريقيا يوروب يا أمريكا
inaa maqashaan in kala maaqaan Tanzania 20 wiil oo laga soo daayay oo magaalada Nairobi ka hadlay waxay sheegeen in 200 dhalinyaro ah oo rag iyo haween ay xiran yihiin 20 keen aan soo baxnana nagula soo daayay qofkiiba $700 waxay codsadeen dadka naga dambeeyo ama baax dheer hadana maanta maalintii haweenka ay tahay haweenkii Soomaaliyeed aan nahay waxaan baax dheer u direynaa raggeena Soomaaliyeed kan qoriga haysto kan qalinka haysto ninka safiirka ka ah Afrika joogo waxaan ka xuma dhalinyarada markasta ku xiran yihiin in la fasaxo la sii daayo dhalinyarada ay ka baxaan xabsiyada waxaan codsanaynaa dawladda ku meel gaarka ah markay qaaradaha isaga goosh ayaan danaha gaarka iyo danaha guud bay isku wadaan in xabsiyaashii la fiiriyo wiil yaroo sheekeynayo wuxuu yidhi Mozambique nagala soo qabtay waxaa nagala bixi dharkii nagala wada qaatay macal kastuumooyinkii macal saraawiish 7 maalmood waxaan cunaynuu yidhi coos annagana ceeshadan cunaa maqaxayno taala maqaayad taala xarataala fiiljeerka dhalinyaro 200 wax la jiro oo coos ku cunaayo magaalada dhaxaysa Mozambique iyo Tanzania waa dareemi kartaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa in qarinaa noogu dhameeyo maantana waa maalintii 8 Maarso waa xuski waa kaalintii weynada haweenka looga baahnay xuquuqooda u dagaalamaan afkooda ay baxsadaan gabadhan luqadda aqooninay ururka hiil ku soo xiran wuxuu xoog ku saaraa dhabar inuu ka caawiyo gabadhii caafimaad u baahan gabadhii u baahan arrin la talin waxaan caaw wixii ka dambeeya aan ka codsanaynaa inaan isku xirnaano oo noqono walaalo ilaahay سعدية محمد حسين سعدية صومالي إلى أيضا خطبتي أنا كسر دواء سعدية وميكروفونك ما تنتهي مع محمد داوود وكان أنا ربعنا ويا شيء وكان مذكر هذا حاول شكري استعجل قبلها الصومالية كنا وشلنا إن وح وناكسل مركا وحاوية مركا إن ما استعجلي إن المهن يا قبلها إني بعتسنا سامبر كسوقات قبلها أوركله إن عاونو المها بعتسن حافظها هي بعتلك بيسنا إن كوضع هذا الله تانسوي معنا وندرهنا أن أقوله يعني حتى مدى مشى وحويه مشي ما سجد وحنويه سويشكا وحويه قانون ما أنتوا كله وقت هذا يقول دبار فيمينيست وحديدار أنا كفيمينيست مني وحن هاي قبل دمتون مستعد يلمو هذا إيوه إن عن ما تهرم الجار كسوقات إن عن سويشكا برنو إن عافمات برنو إن لقيها قبل الكراء إن لقيها قبل الويراء إن الغنى قبل وحي قانا وده كان آدي يعملوا يرناي وإن قبلها حتى صاقر وده كان وتجد له وقبلها يرناي هنا وحبتها وما كان كفى الإنسان مركا مركا يبعثوا وين أيام هيسكا حاجة عيال كيجا حاجة قبلها يلا وكل وقت معنا قرصنا واللي قد أخوين وعندنا عاونين هنا عم نستعمل عاوننا مركا أذكر إلى عاوسان وأنا بدل عاوز عاون وأنا نستعمل حافظين ما تذكر عيس وأختي مالي نستعمل بوليس أنا مركا محاكين هنا اسمه يدينه كان ما يسوي تغلو وندل هنا أخونا أيام الدنيا كل جاب نستعمل مركا قبلها نقول آدي يوم هالسنين كل يوم هالسنين سودوانا وحنا الدار السنية دولة عن حد جرتين الصومالية والدولة ده شيء ما كلا سعري عليها ما لحظة سري ما كلا سعري لكن مرضى إيمان دوكا إن النوبل بريسينا حديد إن عشرين هذا ما شاء الله
Soomaaliya oo ajaanib oo barnaamijka nagala soo qayb galay ugu faraxsanahay in nagala soo qayb galaan maalinta haweenka adduunka haween badan oo kala wadana marka aad iyo aad u fahansantihiin soo dhawaada وأنا مام سعدية في شهر مام سعدية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت واسي ده مارسو مالتها وين كأدوك أو إدل. وحنقول سلام يا جماعة ما كستيجوا قبلها. حنلاقي عيد ونكس. عيد كبعد وحنلاقي هاي. برنامج معناها قبلها دور كأي كلي عالم كأي كجدنا الوطن كا والنوبي هاي إلا حقير ما في عنه حتى لو حام إذا نوب باللاغنا يسوع روايد يروحها ليس دور كقبلها وحي قبطان هي وحيين وينو شيء دونان حديلة هيدا قبلي وزارة وشقينا يعني ما أنت الله ميت وزارة هاي قبلي كسعودي وزيردي وزارة المالية وزارة عافماتك هاي سيرتين والله في عيني هاي أنا قال كي كسعودي هلا وبرتين وزارة ما شاء الله تبارك الله أنا قال كي كسعودي هلا وبرتين اوكي ما شاء الله انا هلقى كسعودي وزيرة عافمات ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انا وحنا وزارة قاشان ليكا marka waxaan idin leeyahay doorka aan ku leenahay anaga kaalinta wadanka gabdhaha xulinta ay kala yihiin waa la og yahay daan isxaqiraynin sanadkana waxa lagu baxsaday gabdho waaye marka inaad dadaashaan oo hawshiina si firfircoon uga shaqaysataan waxa la rabaa in waajibaadka yani idinku leeyahay dalka iyo dadkiina inaad gudataan iyo diintiina inaad gudataan oo shaqooyinka aad joogtaan ku amaanaataan gabdhaha laalaad ma yaqaanaan dirita waa la og yahay haddana waxaan rabaa kaalintiinii inaad sii laba jibaartaan oo yani la idin ogaado wasiiradda caafimaadka wasiiradda muxuu maaliyadda wasiiradda looyarada soo baratay gabadha looyaradnimada soo baratay ururada bulshada inta waa idin hambaliyayna ana waxaan ahay wasaaradda gaashaandhigan ka socdaa waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan waxaan idin leeyahay wata maarso soo dhawow dumarka doorkoodii maxaa dhihi lahayd marka adiga looyarow ay looyaray maxaa dhihi lahayd adiga حدي لها وحن شجع عندك وحطان نمك إلى ما شاء الله أنا ما أدري كيف ذكر ما نمك سهلة ما شاء الله تبارك الله وهي إن شاء الله هي أنا واحد وزير عافمات كذا لكن هنا صفي عند قوة إلى الله يرى hooyada ciyaalka masaxadooda insha Allah inaad ka shaqeyso haya ururada bulshada soo dhawo أنا waxaan jeclahay oo bulshada haweenka isku imaano aan ka shaqeyno sidii aan horumarka wadanka sidii aan waxyaabo badan isku fahansiin haya shaqadaas looga dhigan yahay waa inoo kulan dambe iyo siimaanka keena
Mana lu ya kan? Mana lu ya kan?